jamhuuriyadda Soomaaliland ama qarankeena oo dhan imtixaankaasi ardayda fadhiisanaysa arday waxaan 27 oo arday ah insha Allah ka gobol ahaan waxa fadhiisanayay 3,330 laakiin tirada markaa la 3,320 arday absent bay ahayn laakiin 3,330 arday ee imtixaanka shahaadiga u fadhiistay ee sanad dugsiyeedkii 2016 iyo 2017 alxamdulillah waxa imtixaanka ku soo dhamaaday sidii ugu wanaagsanayd sidii maanta ay ku dhawaaqeen xafiiska imtixaamaadka iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada waxaan awalan u mahadnaqayaa dhammaan ardayda imtixaamaadka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland intii baastay iyo inta kale u baahan yahay dadaalka waxaan leeyahay hambaliyo marka dugsiyada sare la 10 dugsi ee Soomaaliland ugu wanaagsan waxaan ka galnay kaalinta afraad oo dugsiga geb ayaa galay haddii aan gobolka awdal horena kaalinta lixaadna waxa galay Selel oo yadna Saacadiin ama Seylac dugsiga boarding ee ku yaal labada dugsi waa boarding waan hambaliyo